ilaahay intaad ka cabsato waxaan ka codsanay madaxweyne adigoo socda inaad noo timaado oo buul kugu marti qaado oo kugu soo dhaweeyo oo gacanta isgelino oo xuquuqdana fadhiyan wada halnaan rabnaa waxaan cabasho ka nahay madaxweynuhu wuxuu qaybiyay waxna soo gaaray ma jiraan dawladdu baahidayadii ka soo bixi jirtay gobolka awal ma soo dhaafi jiray dawladdii hore oo Cabdi Maxamed Cumar markii ay dhacday waxaan lahayn maanta cadaalad baa la heli doonaa waxaan joognaa qabalaha Buulale oo ka tirsan santarka Laasacaanood oo hoos taga degmada Shilaabo gobolka Qorraxay waxaan maanta u soo banaan baxnay oon cabasho ka nahay baahida asaasiga ah oo ku lahayn xuquuqdii dawlad deegaanka aanu kala anahay dawladdu daakhil intay qaadatay yoomna hada wax xuquuq la yiraahdo oo ka hayna ma jirto haday caafimaad tahay haday batay biyo haday tahay ma taqaana umulisada haday tahay ma taqaana waxbarashada isgaarsiin waxaanu ka hayna ma jiraan hadda meeshaan ku noolnahay waxa weeye alteena khasaba baanu haysanay alteena dawladdu ay mudday ma hayno oo gobol had meeshaan joogna laga mudin waa gacantaag macni waxa la dhihi karaa gacantaag markaan leeyahay waa alteena khasab lagu keenay weeye waxayse ay mudnayd dawladdu amaakinta laga rabo haday biyahayd haday isgaarsiinahayd haday caafimaad ahayd haday nolol ahayd midna lagama hayo waxaan cabasho ka nahay madaxweynuhu wuxuu qaybiyay waxna soo gaaray ma jiraan degmadii awal aan ka tirsanayn dulan baan ku qabnay dawladdu baahidayadii ka soo bixi jirtay gobolka awal ma soo dhaafi jirin santarka aan ka tirsanahay konton iyo dhowr qabale ayaa ka tirsan santarada hadda nagu heeran oo dariska nala ah sida makshuufka waa labo ama waa afar ama waa saddex waxaan daris lana mid walba wuxuu xukumaa waa wax loogi ama waa mid ama waa labo annaguna waxaan xukunaa konton iyo dhowr qabale waana cadaalad darrada degmada iyo gobolka awal ay nagu hayeen waxaan rabnay dawladdii hore oo Cabdi Maxamed Cumar markii ay dhacday waxaan lahayn maanta cadaalad baa la heli doonaa degmadaas marka waxaan dhowreynay inay maanta maadaama doorashadii ku guuleystay Mustafa Maxamed Cagjar inay macnaheedu dib u cushadas dambe aanu ka helno degmooyin iyo gobollo waxaan ku noolnay waxa weeye ilaa 70 kilomitir isku wareega waxaanu astaahilnaa gobollo waxaan astaahilnaa degmooyin waxaan astaahilnaa santaro wixii saas ahaa wax aan ka haynaa ma jiraan eber baan ka fadhinaa waxaan cabashoonay waxa weeye madaxweynaha inuu wafdi xaqiiqo ah oo ahayn rag dulanka nagu waday inuu yimaadaan baan soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa in lala xisaabtami doono oo maalinka qiyaamaha lagu xisaabtami doono xuduudda 300 oo kiiloomitir in lagu xisaabtami doono dadka degan oo caafimaad lahayn oo nolol asaasi ah lahayn oo waxbarasho lahayn oo biyo lahayn oo dhaqaatiir lahayn waxaad ka ogeydeen jilaalkan hadda aan ku jirno kii ka horeysay oo hadda 6 bilood ama 7 bilood laga joogo ariga xanfasho ay baabiisay sandarka dawladdu waxay kaga jawaabtay matoor degdega waxa laga qabtay in la qoday mooyaane ma jirto waxay u muuqataa markaas oo annagu u dhadhaminay xilliga abaartii markii daacuunka uu jiray waxa dhacday wadanku waa tii biyo ciriir ay noqdeen waxaan ka keenay jirnay biyo marka Soomaaliya laga keenay jiray waxa yimid madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxaan maalinkaas maskaxda u dhaadhicinay in cunaqabataynta la qaadi doono marka ciidamada dalka ay ku hayeen waxayba dhacday in loo sii dhuujiyo markaas marka waxaan hadda iska dhaadhicinay oo noo muuqatay matoorka hal la qodaaba la yiri in macaan afka galna xamed waxa noo maqan ba inaysan jirin bay ergaas u dhadhamaya waxaan madaxweynaha ka codsaynaa waxa weeye walaalayaalow madaxweynow walaalkayow ehelow tolow cadaaladda inaad waafaqdo inaad ilaahay ka cabsato nabi wuxuu sallallahu wasallam alayhi kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun ra'iy dhamaantiin waxaatiin raaci waxaatiin shaqaale madaxweyne dadkaan lagu raaciyay adiga u dhaartay xilka adaw haya ninbana maalin buu hayn doonaa maalinta hadda aan joogno waa lagu weydiin doonaa aniga hadda kula hadlahaya 40 dhowr sano jira wali keenida dawladda wali ma laqin dastuurka markii hadda la raacana degmo 40 kilomitir isku jirta awal lama arki jirin laakiin hadda waxa la arkay 30 kilomitir degmo isku jira la arkaya waxay u muuqataa cadaalad darro arrintaas inay macnaheedu madaxweyne ay u dhacday
adigana rag aan sax ku wadin ay talada kugu rideen waxaan rabnaa madaxweyne inaad dib u fiirsatid inaad cadaaladda dib ugu noqotid in lagu xisaabtami doono maalinka qiyaamada godweynta inaad ogaatid wafti xaqiiqa oo madaxweynuhu uu ka mid yahay inay dalka yimaadaan inay arkaan baahida dhulka ka jirta dadka ka jirta caafimaad darrada ka jirta inay arkaan war 300 oo kiiloomitir mad fadhida oo santar magac ku yaala oo wax baahiya oo asaasi oo aan qabin in dalka lagu xukumo waa nasiib darro war maaha madaxweyne saas maahan ilaahay intaad ka cabsatay qiyaamo waa lagu weydiin doonaa war 300 oo kiiloomitir isku wareega oo nolol aan lahayn baa dalka aad ku xukuntaa yaa gurigiina bas laguma xukumin gurigiina bas oo maada dhaaranin annaka aan doo dhaaratay xuquuqdanadii meel ku sheeg ilaahay intaad ka cabsato waxaan ka codsanayaa madaxweyne adigoo socda inaad noo timaado oo buulla kugu marti qaado oo kugu soo dhaweeyo oo gacanta isgelino oo xuquuqdana fadhi aan wada halnaan rabnaa gobolku dibka uu wada waa la ogeey ilaahay subhanahu wa ta'ala degmadu dibka uu wada ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa wax hadda dawladda ku baaqda ma jiraan xuquuqdana waa soo baxday gobolka dibadda ma dhaafin ilaahay intaad u laabato subhanahu wa ta'ala halkaan loogu imaa waa ku soo dhaweynanay